xukuumaddu horta in wixii maanta ka bilaabanta iyo wiilka soo socda ugu dambeyn si aan dagaal dambe loo xakameeyo waa in dawladdu xoogga hore ee ciidanka hore ee meesha hadda goobta ka jooga ciidan kale oo u dhigma ama la miisaana ama ka fara badan waa inay geysaa bilowgii ugu horeysay dagaalkani markuu bilaabmay ciddii isu jawaabtay ee colaadda abaabulka ka hadashay ee dagaalka iclaamisay madax dhaqameedka ugaasyada labada dhinac bay ahaayeen taariikhdana laguma hayo madax dhaqameed isagu intuu saxaafadiisa soo taago yiraahdo haddaanu reer hebelnahay waa la dagaalamayaa labada dhinacba way yiraahdeen bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin saaka shirkan jaraa'id waxaan u qabanay xusbiga kulmiye wuxuu u qabtay sidaa la socotaan beriyahan dambe sanadkan ina dhaafay ee 2025 dabayaaqadii sanadkii hore ilaa iyo bishii Disembar ilaa iyo imika dagaal baa ka socda goboladan Awdal iyo Selel dagaalkaas waxa uu bilaabmay bishii Disembar 2024 bilowgiisii ilaa iyo maantana wuu socdaa dooraato u dambeysay muddadii dagaalku socday dagaalkii ugu cuslaabaa dhacay khasaare aad iyo aad u fara badan oo labada dhinacba saameeyay ayaa maxaan ku dhahday u geystay marka la eego muddadii dagaalkaasi uu socday waajibka ugu faraha badan leh cidda uu saaran yahay waxa weeye waa xukuumadda qaranka xilka u haysa waajibka labaad dadka hayaana waxa weeye waa dadka waayeelka waxgaradka madax dhaqameedka salaadiin iyo ugaasiye iyo boqorraba ay tahay iyo cuqaal iyo dadka waxgaradka kale ee dalka dadkaas baadama markasta dee qaranka la joogo cidi xilka hayso oo xilka dee lama wada hayee mar walba dawladda joogtaa haysa dawladda ayay waajib ku tahay iyadayna xilkeeda dastuuriga ah tahay sida qura inay abaabusho dadka waxgaradka ee qaranka arrintan culays la saaro labada qolaba maxaan ku dhahday culays xoog la dhinacba la saaro xaaladda imika uu marayana waxa ay u baahan tahay horena way inoo soo martay waayo aragnimo fara badanna Somaliland way u leedahay dagaalo noocan oo kale oo gobolada dalka ka dhacay markani waxay u baahan tahay waa marxaladii ay maraysay oo ah in xoog la saaro labada dhinac oo la kala joojiyo oo xoogaa marka ay u suuro geli weydo meel ay iska gaadhaan inaani jirin oo culays la saaro xoog la saaro gaadiidka laga qabto ragga hubaysan ee gudbaya laga qabto meelaha weerarada isaga imanayaan xoog la saaro oo laga qabto haddii kale dhiigga maalin walba qubanaya dhimashada maalin walba dhacaysa ayaa maxaan ku dhahdaa imanaysa waxaan leenahay markaa dawladdu aad iyo aad bay ugu dhaliilan tahay arrintan inaan xooggii la rabay aan la saarin marka hawsha dawladdu qabanayso howlgalka dawladdu fulinayso xoogga dawladdu isticmaalayso mar walba wuxuu u dhignaanayaa xoogaga labada dhinac ee ishaya ay isticmaalayaan marka iyadoo taa la xisaabtamaysa oo dawladdu taa ku xisaabtamaysa oo iyadu dawladdu qiimeyntaa samaynaysa waxaa lagama maarmaan ah horta dawladdu in ay xoog culus ay geyso oo xoogga culusna ay ka dhex samayso dhammaan ciidamada qalabka sidee maxaan ku dhahday jamhuuriyadda Somaliland oo ciidamadaasi ay sameeyaan
khadad cagaaran iyo khadad cas oo la kala mamnuucayo labada qolo iyo xoogooda iyo ciidankoodu inay iskaadhaan ayaynu doonaynaa inaynu culays ka saarno dowladdu markaa weli may samaynin markii la arkay in dagaalkii uu istaagi waayey markii la arkay dadaalkii xukuumadda waday ama dadka loo shicibihii ay galeen oo madax dhaqameedihii inaanu suuro gelin inuu dagaalka istaago markii la arkay ilaa iyo iminka inaan miisaan rasmi ah oo labada dhinac ka kooban oo waayeelkooda iyo waxgaradkeeda iyo cuqaashooda iyo madax dhaqameedkooda iyo ugaasyadooda iyo salaadiintooda ay ku jiraan aanu meel ay suuro geli waday inay meel la ku kulmaan oo noqon kara sababtii dagaalkaa joojin kari lahayd dowladda markaa waxaa hor yaallay inay isugu yeedho qaranka waxgaradkiisa xusbiyada qaranka madax dhaqameedka dadka kale waxgaradka ee maxaan ku dhahday ama jaamacadaha jooga ama maxaan ku dhahday siyaasiyiinta kale aan xusbiyadaba ahaynee dalka joogta in halkaa laga abaabulo xoog weyn oo culus oo labada dhinacban la duldhigo oo suuro geliya in ay labada qoloba khasab ku aqbalaan inay meelna isugu yimaadaan dagaalkuna isjoogsado haddii kale sidaa muddada dheer iminka ay u socdeen oo maalin walba dagaalka culusi u dhacayo ayaa inagu imanaysa inuu dagaalku joogo waxaana laga yaabaa dadaalka faraha badan lee la soco inta la doonayo in la fuliyo ama maalin walba socdaa inaanu noqonin dadaal suuro geliya in labada qolo dagaalka ay maxaan ku dhahday joogsadaan sida la ajligeed maadaama arrintani xaalad culus tahay maadaama degaan weyn oo laba gobolo laba beeloodoo degaa ay haystaan maadaama inta uu dagaalku ka socda ay dhul weyn tahay oo ay labada beeloodba ay wada degan yihiin maadaama iminka maalin walba uu sii siyaadayo xoog urursiga hub urursiga maxaan ku dhahdaye labada dhinac lagama maarmaan waxaa markaa iminka in sida ugu dhaqsaha badan le ugu degdegsan loo diyaariyo barnaamijkii hawshaa lagaga howlgeli lahaa barnaamijkaasoo ah kow xukuumaddu horta in wixii maanta ka bilaabanta iyo wiigga soo socda ugu dambeyn si aan dagaal dambe loo xakameeyo waa inay dowladdu xoogga hore ee ciidanka hore ee meesha hadda goobta ka jooga ciidan kale oo u dhigma ama la miisaana ama ka fara badan waa inay geysaa ciidankaas hadda iminka joogay wuxuu ahaa ciidanka qaranka oo quraa jooga meelaha magaalooyinkana biliis baa ku weheliya biliiska iyo ciidanka qaranka ee militariga iyo asluubta iyo immigrationka iyo xeebaha intaba in laga abaabulo in ciidan culusi meesha tago oo suuro geliya in qolana nuuxsan weydo labada qolana ay iskaadhi waayaan laba sida ugu degdegsan madaxweynuhu waa inuu u ururiyaa kulan ay xusbiyada qaranku kow ka yihiin madax dhaqameedka qaranku kow laba ka yahay waxgaradka iyo waayeel kale iyo siyaasiyiin kaleba ay ku jiraan oo halkaa laga suuro geliyo in miisaan weyn oo culus oo lagu abaabulo jiidda oo la geeyo in maxaan ku dhahday suu dagaalku isu taago waxaa kaloo lagama maarmaana in labada qoloba la wargeliyo labada qolona culays lagu saaro madax dhaqameedka labada qolo inaanay meelo gaara kale oo meelaha gaargaarkaa kala jooga inay xuduudda somalilandna soo wada galaan dowladda somaliland meesha ay u astaysana ay wada yimaadaan taasina ay noqoto miisaan labada qoloba maxaan ku dhahday laga doonayo waxaan ku soo ururinayaa xaaladani waa xaalad aad iyo aada u culus xaaladan waayo aragnimo fara badanna dowladda somaliland way u leedahay ilaa intaynu dhulka soo galay arrimo noocan oo kalihii way dhacayeen waana iska caadi in maxaan ku dhahdaye isqabad degaamo meel wada degamane maxaan ku dhahdaye iska dhacaan laakiin waxaa lagama maarmaan ah iyadoo labada qolona loo gafaynin qolona si gaara loo isticmaalo intay loo caydhsanaynin qolona si gaara culays loo duldhigaynin si siman oo maxaan ku dhahdaye dowladdana xaqeeda la siinayo
ayaduna ay waajibka qaranka iyadu leedahay in si adag loogu isticmaalo cid allaaliya ciddii maxaanku idhaahdayay diidda barnaamijka nabadda dib loogu soo dabaalayo labada dhinacba in culays xoog la saaro dadka dagaalka wada ee waayeelka iyo waxgaradka in tallaabo laga qaada waa lagaba maarmaan waxaan leenahay markaa ilaahay colaadaha inooga sahlo ilaahay colaadaas inooga sahlo ilaahay nabadgelyadii dib ha noogu soo celiyo labada qolo waxaynu leenahay colaadu iskama socoto dhalinyarada iyo daayarta colaada ku jirta maaha dadka colaada iyagu abaabulaya xoogga la isticmaalayo xoolaha la isticmaalayo saanada la isticmaalayo dhaqaalaha la isticmaalayo inta bixinaysa inta lacagta haysata waa inta baaci mushtariga meel kastaba ay joogto iyo inta madax dhaqameedka ayaana maxaanku dhahday dagaalkan abaabulaysa waa lala socdaayo dadka waa laydinla degan yahay dhulkana waa laydinla degan yahay xaaladana waa laga wada warhaya bilowgii ugu horeysay dagaalkani markuu bilaabmay ciddii isu jawaabtay ee colaada abaabulka ka hadashay ee dagaalka iclaamisay madax dhaqameedka ugaasyada labada dhinac bay aqaayeen taariikhdana laguma hayo madax dhaqameed isagu intuu saxaafadiisa soo taago yidhaahda haddaanu reer hebelnahay waa la dagaalamayaa labada dhinacba way yidhaahdeen waxaan labada dhinacba ku wargelinaynaa ilaahay ka yaaba oo dadka dagaalka ku dhimanaya ka daaya dhimashada idinku horseedka ugu tihiin waxaan leenahay nabad ha lagu soo dabaalo waxaan leenahay culimadu arrintan qeyb weyn ha ka noqoto masaajidada haddii tahay khudbadaha jimcaha la akhriyaya haddii ay tahay deegaanka labada deegaan culimada joogtaa kulan iyagu ha yimaadaan ha isugu yimaadaan dowladuna maxaanku idhaahday ha adeegsato saxaafadda waxaan leenahay waa xoogga qaranka ka mid ah salaan carabi wuxuu yidhi magligu wuxuu la xow yahay afku wuxuu la xowl yahay magliga xawda kaa jara saxaafadda waxaan u baahannahay in facebooka iyo tiktoka iyo waxyaalaha faraha badan leh arrimaha badan ee aan social aan dadka miisaanka faraha badan leh iyo aqoonta faraha badan leh maxaanku dhahday hagaynin ee inaka dhexdeena layskaga maago saxaafadda qaranka waa miisaankii qaranka miisaanadii qarankay ka mid tahay saxaafadda waxaynu u baahannahay deegaanka ha lagu jeediyo aada iyo aada ha looga hadlo dadka abaabulaya aada iyo aada ha loola hadlo cid kasta banaanka ha lasoo dhigo haddii kale waxaa maalin walba dhimanaya waa dadkeennii dadka dhimanaya waa daayartii dalka dhimanaya waa dhigbaxani qarankuu saaran yahay marka waxaan leenahay aanu guddigeen qaranka reer somaliland hadduu yahayna aan dib maxaanku dhahdaye isugu tagno dowladdana waxaan u baahannahay tallaabooyinka la qaadaya inay tallaabooyin deg degana ay noqoto ayagana maxaanku dhahdaye warcad laga helo sida looga howlgalayo arrintan nabadgelyadeeda idinkuna aada iyo aad baa u mahadsantihiin aada iyo aad baan idiin salaamaya asalaamu calaykum